Filimkan wuxuu ku bilaabanayaa 1986 magaalada Okinawa ee dalka Japan, halkaasoo macallinka Kung Fu oo lagu magacaabo Sensei Miyagi uu u sheegay ardaygiisa Daniel in awowgii isagoo kulmaysanaya ay soo dhaceen dabaylo iyo duufaano xooggan. Kadib sidaas ay ku geeyeen China, halkaasna uu kula kulmay macallinka Kung Fu-ga oo la odhan jiray Sensei Han, waana meeshuu ku soo bartay Kung Fu-ga. Kadib wuxuu dib ugu soo laabtay Japan. Hadda waxaa jira xiriiro qoto dheer oo u dhexeeya Miyagi qoyskiisa iyo Han qoyskiisa. Kadib waxaan arkaynaa in waqti uu wareegay 2025 magaalada Beijing ee dalka China, dugsigan oo lagu magacaabo Han Kung Fu. Halkan waxaanu arkaynaa nin lagu magacaabo Master Han Shifu, waxaanu Kung Fu-ga baraya carruurta, waxaana ka mid ah wiil lagu magacaabo Lin Fang, waxaanu kaliya ku tababaranayaa meel. gabartan yar ayaa arkaysa dhakhtarad kaasoo ah hooyada Li, waxaanu u sheegaysaa macallinka inay soo socoto hooyada Li. Kadib macallinku wuxuu u sheegay inuu ka boojeeyo si uu qariyo Li. hooyadii ma rabto inuu barto Kung Fu-ga, waxaana u sheegaysaa Master Han inuu u soo celiyo wiilkeeda, waxaana ka odhanaysaa ma rabo inaan waayo kanna sababtoo ah kii hore ayaan waayey weliba Kung Fu-ga dartii, kan kalena ma rabo inaan waayo. waxayna u sheegaysaa inay shaqo cusub ka heshay New York, waxaanu kaxaysanaysaa Li. markuu yimaado kadib wuxuu soo doonanayaa biisa. kadib ninkan oo la dhaho Victor ayaa ku jeesjeesaya. kadib gabadhan oo lagu magacaabo Mia ayaa soo gaadhaysaa, wayna ka raaligelinaysaa, waxayna u sheegaysaa raggan mid ka mid a inuu aabaheed yahay. kadib waxay u sheegaysaa inaanay hayn biisa laakiin cuntooyin kale ay u heli karto. maalintii xigta ayaa la soo gaadhaya, mar kale ayuu ku arkaya dariiqa Mia si uu u caawiyo. kadib markay ka daadatay alaab, waxaanu la soo qaadaya kale iyaanyadii ay siday. kadib intuy dariiqa sogeen wuxuu arkayaa meel lagu ciyaarayo kaarateyga. kadib Mia waxay weydiinaysaa ma taqaana kaarateyga. kadib wuxuu ugu jawaabayaa Kung Fu-ga ayaan ciyaari jiray, haddana waan iska dhaafay. waxaana u sheegaysaa inaanu xagga marna isku dayin inuu wax ka barto. kadib waxaa soo muuqanaya ninkan oo aabaheed lacag ku leh, waana ninka iska leh goobta kaarateyga lagu ciyaaro. kadib Li waxay u sheegaysaa inaanu raggan u dhowaan, waxaana soo muuqanaya ninkan oo la dhaho Connor, waana egaska Mia. kadib dukaankan ayay ka gadanaysaa alaab iyadoo qiimo sarreer lagu baayacayo, waxayna u sheegaysaa inaanay hayn. kadib intaanay bixin waxaa la hadlaya Li isagoo weliba af Chinese kula hadlaya, waxayna ka siinaysaa alaabta qiimaha ay sheegtay qiimo saa'id uga hooseeya. wayna la yaabaysaa Mia, waxaana u sheegayaa inuu luuqadda bari karo, waxaana kale u sheegayaa haddaad luuqadda barato in diskood lagu samayn karo. waxayna maalintii xigta jidka ku qaadanayeen magaalada dhexdeeda, laakiin ugu dambeyn mootadu way ka jabtay, waxayna soo raacayaan tareen. halkaasna waxay ku arkayaan Connor, waxaanu weydiinayaa ninkan cidda uu yahay, waxayna u sheegaysaa in la dhaho Li. kadib wuxuu weydiinayaa Li xaggee ka timid, waxaanu ugu jawaabayaa Beijing. waxaa kale uu weydiinayaa inuu yaqaano Kung Fu-ga, waxaanu ugu jawaabayaa inuu yaqaano xoogaha yar. markay bixi rabaanna Li wuxuu ka sii jarayaa Connor feer wejiga. Mia waxay ku odhanaysaa iga raali noqo. kadib waxay u sheegaysaa Connor inuu xiriir kala dhexayn jiray, waxayna keenaysaa dukaanka Li ma doonayo inay hooyadii aragto dhaawacan. Victor ayaa hagaajinaya dhaawaca saan loo arag markaasna waa markaynu ogaano inuu Victor ka mid ahaa feeryahanada ugu fiican magaaladan. kadib hooyadii waa arkaysaa dhaawaca soo gaadhay, waxaana u sheegaysaa inaanu dagaal dambe gelin. kadib waxaa soo muuqanaya ninkan oo lagu magacaabo Alan. kadib Li hooyadii wuxuu weydiinayaa qofkan inuu yahay. kadib waxay ugu jawaabaysaa waa macalinka STI-ga si uu u gudbo imtixaanka soo socdo. kadib habeenimada Li wuxuu soo xasuustaa walaalkii markuu beri jiray ciyaarta mastuulaaga. subaxdii xigtay Connor ayaa u imaanaya, waxaanu biloobaya inuu ku xanaajiyo Li, waanu kala tuuraya. kadib Connor ayaa u sheegaya inuu lugihiisa keliyata isaga celin doono. kadib markuu jeebadaha gashto gacmaha, Connor wuxuu si xirfad leh uga baxsanaya weerarka ku soo qaadayo Li, laakiin Li ma awoodo inuu iska celiyo Connor. kadib wuxuu soo xasuusanaya dagaalkii walaalkii beri jiray ee mastuulaaga. kadib Connor ayuu ku soo boodaya, laakiin markiiba dhulka ayaa la dhigaya Li, isagoona Connor Li u sheegaya inuu ku arki doono tartanka 5 xaafood. waxaanu u sheegaya kale halkaasna cidna ima joojin doonto Li. isagoo xaafadda ku soo laabanaya wuxuu arkayaa warqadda xayeysiinta tartanka, waanu qaadanaya. fiidka wuxuu imaanaya inuu hagaajiyo mootadii Mia, laakiin waxaa imaanaya burcad doonaysa inay qaraacdo. Victor oo qaylinaya ayaa u sheegaya inuu soo galo guriga, laakiin Victor ayay qaraacayaan. Lina wuxuu la soo baxaya xirfadaha uu soo bartay, waanu garaacaya tuugadii. kadib intaas way ka cararayaan meeshii tuugadu. kadib markay galaan makhaayadda, Victor wuxuu weydiinayaa waxa banaanka ka dhacay. Lina wuxuu ugu jawaabayaa waxaan baran jiray Kung Fu-ga, gacmahayguna waa kuwa tababaran. Victor sagna wuxuu tusayaa guulihii uu noloshiisa ka gaadhay, waxaanu ahaa ciyaaryahan caana, balse uu ka hadhay markii dambe si uu kariyo inantiisa. waxaanu furtay makhaayaddan, waxaanu lacagta makhaayadda ku furtuu ka soo qaatay ninka iska leh meesha kaarateyga lagu ciyaaro. waxaana makhaayaddu u dhowday in la xidhi doonaa haddaanu bixin lacagtii, laakiin saaxiibku wuxuu sheegayaa inuu haysto fursad uu ku ciyaari karo boksarka, haddii uu guulaystana inuu heli doono lacag ka badan inta lagu lahaa. waxaanu ka codsanayaa Li inuu baro xoogaha Kung Fu-ga si uu ugu daro xirfadiisa boksarka, laakiin Li wuu ka diidaya isagoo hore u ballan qaaday inaanu mar dambe dagaal geli doonin sababo la xidhiidha dhacday murugo leh oo hore u dhacday. waxaanu wacay macalinkiisa, waxaanu u sheegayaa inuu qof weydiistay si uu caawiyo si uu ciyaaro, isagoona ku dhahaya ka waran arrinkaa macallin. kadib wuxuu sheegayaa Kung Fu-gu inuu qof walba caawin karo, hadduu kaa codsadana ha ka labalabeen. dib ayuu ugu soo noqonayaa isagoo u sheegaya
sheegayaa inuu diyaar yahay. Lee wuxuu bilaabayaa inuu Victor baro kung fu-ga. Marka hore Victor uu ka labalabeynaya arrinkaas inuu la wadaago isaga, laakiin si dhaqso ayuu ogaanaya inuu Lee ka xirfad badan yahay. Mia waxay ogaanaysaa inuu aabbaheed ku noqon rabo boxerka, waana ka xanaaqaysa labadooda, laakiin Victor wuxuu ku qancinayaa inuu taas samayn karo. Lee wuxuu tababarka u bilaabayaa Victor, xitaa markuu dukaanka joogo tababarka ayuu ku jiraa. Marka tareenka uu raaco wuu ku jiraa tababarka, ilaa waa nin shaqa ka go'an tahay. Xitaa wuxuu tababarka ku qaadanaya alaabta dukaanka. Lee wuxuu bilaabayaa inuu kala shaqeeyo kafeteriyada. Habeenada ka mid ah wuxuu imaanayaa guriga, waxaanu arkayaa hooyadii oo hurda, waxaana ag yaalay sawirka walaalkiisa oo geeriyooday. Waxaanu ka gubanayaa xusuusihii walaalkii. Victor ayaa u soo gelaya isagoo weydiinaya maxaa samaynaysaa xilligan dambe. Waxaanu u sheegayaa sheekada walaalkii. Waxaanu u sheegayaa hal sano ka hor markii walaalkii ugu dambeysay waxay ku guulaysteen tartan. Kadib waxaa imaanaya dadka xanaaqsan guushooda oo soo weeraraya, waana maalintii walaalkii dhimanayay. Waxaanu iga codsanayaa inaan badbaadiyo, laakiin waan badbaadin kari waaya, waana xagga uu ka qaaday dareenka dembiga. Maalintaas Victor ayaa u sheegaya inuu ka soo baxo dhaawacan, waxaanu u sheegayaa haddii kale inuu ku baabiin karo. maalintii xigtay Mia ayaa ku casuumaysay Alan iyo Lee festival magaalada ka dhacaya. Alan ayaa weydiinaya adiga Mia maxay idinka dhexeeya, kadib saaxiib nahay kaliya ugu jawaabaya. Kadib Lee markuu arko saaxiibkeeda hore Connor oo la taagan Mia wuu niyad jabaya. maalinta ciyaartu bilowmanaysana wuu iska indhatiraya Mia, waxayna weydiinaysaa maxaa dhacay. waxaanu u sheegayaa maxay tahay xiriirka kala dhexeeya Connor. waxayna u sheegaysaa inay la hadashay Connor, waxaana u sheegtay inaanu mar dambe la soo xiriirin sababtoo ah hadda qof kale ay jeceshay waana Lee. Lee hadalkaasi aad buu ugu farxaya. Mia Leena waxay ku dhow yihiin inay isdhukadaan, laakiin Victor ayaa ku dhahaya maaha maalintiini ee waa maalintaydii, waxaana bilowmanaysa ciyaarta. Victor wuxuu galayaa dagaalka, laakiin ciyaartooyga ka soo horjeeda ayaa feer degdeg ah ku biloobaya isagoon maamulaya ciyaarta. laakiin Victor ayaa si tartiib ah u soo laabanaya ciyaarta isagoo ku dagaalamaya xirfaduu baray Lee, waxaanu ku dhowaanayaa inuu guulaysto. laakiin ciyaaryahan kale ayaa jebinaya xeerka ciyaarta, waxaana si xun u qaraacaya Victor, waxaana si degdeg loogu qaadaya isbitaalka. Lee wuu argagaxaya markuu arko Victor, waxaanu xasuusanaya walaalkii markuu dhakhtarka ku dhimanayay. Lee hooyada ayaa halkaas ku arkaysa, waxayna u sheegaysaa inay samayn doonto wax kasta uu Victor ku bogsanayo. markuu guriga ku noqdana wax kasta uu burburinaya. macalinkiisa Han ayaa soo wacaya, laakiin telefoonka kama qabanayo, waxaanu ku noqonaya guriga. laakiin qof ayaa soo gelaya guriga isagoo la dagaalamaya Lee, laakiin wuxuu noqonayaa Master Han. kadib wuxuu tusaya warqadda tartanka maalinta xigtay. isaga Lee waxay aadayaan dhakhtarka si ay u booqdaan Victor. Lee wuu ka raadingelinaya wixii dhacay. Victorna wuxuu u sheegayaa inaanay tani khaladkiisa ahayn. kadibna Han ayaa u sheegaya inay caawin doonaan si deynta uga dhiibaan. isaguna wuxuu u sheegayaa Lee inuu ka qayb gelayo tartanka, waxaanu u safray Japan. waxaanu imaanaya gurigii macalin Miyagi, waxaanu xagaa kula kulmay Daniel, waxaanu u sheegaya inuu dhintay Miyagi. Hanna wuxuu ugu jawaabaya waan ogahay, waxaanu imi waa adiga. waxaanu ka oranaya waxaanu u baahanay caawimadaada. waxaanu u sheegaya mid ka mid ah ardaydiisii inuu barto kung fu-ga, laakiin si uu guulaysto wuxuu u baahan inuu barto Miyagi Karate. Daniel wuu diidaya isagoo u sheegaya inaanu imaan karin New York, laakiin Master Han ayaa u sheegaya inuu sugayo oo aanu ku soo daahin. kadib waxaanu arkaynaa Alan iyo Lee oo wada socda, isagoo u sheegaya Lee inaanu haysan meel ku tababarto, laakiin Alan ayaa u sheegaya inaanu taas ka warwarin, waxaanu geenayaa meel ku tababarto. Master Hanna halkaa wuxuu ugu bilaabayaa tababarkii Lee, waxaanu ku qancinayaa hooyadii inuu ciyaaro ciyaartan Lee. dhowr maalmood kadib waxaa imaanaya Daniel iyo Master Han waxay si wada jir ah u bilaabayaan tababarka Lee. Haaskan Gufu iyo Miyagi Karate labadooda ayuunba si fiican u yaqaanaa. sidoo kale intuu ku guda jiro tababarka Lee wuxuu la heshiiyey Mia, sidoo kale tartanka uu bilaabmi rabaa. Lee si sahlan ayuu u guulaysanaya ciyaartiisa u horeysa. Daniel iyo Hanna waxay sii barayaan xeelado cusub, sidoo kale Connor wuu guulaysanaya, waxaanay labaduba soo gaadhayaan final. kadib intaan finalka la gaadhin, raggii kooxda Connor ayaa isku dayaya inay weeraraan Lee. Han iyo Daniel ayaa la dagaalamaya iyaga, qof kasta wuxuu ogyahay inaanay fududayn la dagaalanka Connor, waxaanu dagaalamaa sida shabeelka. kadib Daniel ayaa yidhi waxaa hore ula dagaalamay kuwa isagoo kale ah, waxayna odhanayaan waa inaan shabeelka u dhignaa dabin. Lee wuxuu ka oranayaa laagayga mastuulaga mar hore aanu isticmaalay isaga, taasna imay shaqayn. Han wuxuu ka oranayaa waa tan dabinka ugu dhigi lahayn. Connor markuu arko tan waa aqoonsanaya isagoo mooday inaad xagga sare u boodiso, laakiin waxaad u boodaysaa xagga hoose, waxaana lagu tababarayaa dhulka hoose tareenka. isagoo marar badan ay ku adkaanaysa inuu sameeyo, waxay qaadanaysaa maalmo badan. Connor isagna sidoo kale si adag ayuu u tababaranayaa. maalintii dambayse Lee hooyadii ayaa u imaanaysaa si ay u aragto, waxaanay ka odhanaysaa walaalka kugu faani lahaa hadduu joogo wakhtigan. Daniel iyo Han Lee waxay u diyaarinayaan dagaalkii ugu dambeeyey. markay dhaqaaqaan Lee wuxuu xasuusanaya walaalkii. ciyaartu markay bilowmato, Connor wuxuu daqiiqado gudahood Lee kaga qaatay 4 dhibcood. kadib Lee wuxuu bilaabayaa inuu si xoogan ula dagaalamo, waxaanu ku samaynayaa comeback. kadib Connor wuxuu Lee si xun madaxa uga jaraya laag. Leena wuu miirbeelayaa, garsoorkana wuxuu bilaabayaa tirinta isagoo xasuusanaya Victor iyo walaalkii. kadib si la yaab leh ayuu soo kaca. ciyaartu hadda waa 7-7, hal dhibic ayaa hadhay. kadib Lee wuxuu bilaabayaa inuu bilowbo xeelada weyn badan ku tababaranaya ee mastuulaga. kadib Connor ayaa aqoonsanaya xeeladan, balse Connor wuu ku dhacaya dabinkii. Lee wuxuu isticmaalaya xagga hoose, kadib
mar kale ayuu soo weeraraya Connor isagoo mar kale dhulka dhigaya waxaanuu muujinaya xushmadu ka bartay macallimiintiisa kadib ciyaarta waxaa badanaya Lee isagoo ku guuleysanaya $500,000 haddii uu wada faraxsan yihiin waxaana cunayaan biisa sidoo kale Daniel xitaa waxay ugu darayaan Japan biisa kadib waxaa soo muuqanaya saaxiibka Daniel oo lagu magacaabo Johnny isagoo ku oranaya bal ka war haddaynu furno dukaan biisa lacag fiican baa ku jirta filimkeenuna xaggaas ayuu ku dhammaanayaa haddaanad muuqaalka saarin like saar haddaanad channelka ku soo biirin subscribe saar wassalaamu calaykum